fanaankaas wuxuu isagoo daraad lagu tuhmi maxaa laga sheegay inuu yahay tuug oo wax xaday oo fanaankaas laay fanaan wuxuu ka xaday hebel naag gabar la kasaayo caan ah oo mobile ka xaday adduunkan waxaa uga xanoorta qof in la dhaho tuugaa tahay oo social media lagu dhaho tuugaa tahay kanaa xaday oo haddana qofki inuu soo baxo isla meesha laga dhahay tuugaa tahay oo imaado oo la dhaho kale tahay saaxib waa ku aaminsanaya waxaa saas waaye kan waaye oo aan loo qoslo taasoo kaleetana waa dhibaato weyn. asxaabta naga daawanaysa janalka Lee Life nagu soo biira janalka Taariikh Media. يا شو كان سوسن أنا عندك وكرنا هذيك أنا شو كان سمعنا توكسي أو دمشق أصحابنا نوصل بير الدارك ميدي سبسكرايب ده لايك شير وعدوني يو تروفو نبت قليل يا لوكال هارم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الأمانة وإذن سلام ميل كستو الدنيا دافع جوكتا وحيد لنا هاي كسو دوا جنال كلي لاف ميديا مع تصور كله هدنا واصل الله بنا إنجنير كواكنا بوكر أما بدرس أو تقاني إلي لاف إنجنير كده أركتين وحو وضع أرن زيادة مرضو مركي أي كبدني ما كبدني وحال حالة مركي أي حماة مركي وح كتم بدن وأركو وني كان سيسا مخالص وفريستا iyadoo aan uu tala galnay in uu muuqaalka soo muuqdo xitaa ma naga ogolaado oo ma soo fariisto laakiin marka xaaladda ay gaarto baraka malay waa lagu arkaa oo soo fariistaa intaan injineerka u gudbin aan gaarin Leila Fansina ugu hore waxaan leeyahay saaxiibkayga Abukar Cabdulla oo ku faraxsanahay mar kale oo ila fadhiyo video la soo qayb galay idinkana waa ku mahadsantihiin sida noo daawatiin sida noo tixgelisiin waxaan leeyahay hore u socda asxaabta ku xiran janalka Lee Life maantana saddexdeena nahay maantana maxaa soo kordhay Abukar inta wixii soo kordhay la sheegin soo dhawo warda Abukari badrooni asxaabta ku xiran janalka Lee Life Media inta loo cabo saadgeeda ma yaad leh hi guys kuleela jirmuujidu waxa waaye ni walba hoos raacada dib bilaawaysi soo dhawaad asxaabta mar walba aan soo fariis kale waxba update baa jiro insha Allah waa isla socodsiin doonaa waxyaabe ayaan hore aan ka hadlay waxyaabo ka soo baxeen dhammaan waa wada arki doontiin insha Allah waad ku maasantiin commentiyadiin dhamaantiin waa aragtay ku soo amaanay horta fikradii aan soo jeeday ciladaha kulli waa wax la wada ogyahay mar walba aad fiiriso commentiyada kulli waa wax cilad jirta markaas aan ka hadlay haddana weli cilada way taagan tahay kulli barnaamijka intii markii hore haddana in kala ku dari doonaa dawladda insha Allah sooma Leila fa maanta horta waxaa wadnaa daraad wuxuu ka hadlay saaxiibkeena Abukar wuxuu ka hadlay youtuberada qaar qof jiro markii la bahdilo kaleeto ama wax laga sheego kaleeto haddana qofku wuxuu imaanaa youtube-kii wax laga sheego imaanaa isagoo faraxsan oo dhaaway saaxiib waa ku aaminsanay la janaatahay saan waay kan waay isla tii dhacday iyadoo wax dheerka soo wareegin laba maalin ka bacdi tii dhacday waxa maqli jiray gafkeen iyo geeridan Ilaahay ma kulmiyo hadalkii iyo dhacdadii waa kulmeen isla markii way kulmeen marka waxaan ka hadli rabno video waxa la aragno kaleeto fanaan had soo baxay oo kaleeto magaciisa waxa la fanaan jagajagi sida dadku yaqaaniin sida anaga ku baranay fanaankaas wuxuu isagoo daraad lagu tuhmi maxaa laga sheegay inuu yahay tuug oo wax xaday oo fanaankaas laay fanaan wuxuu ka xaday hebel naag gabar la kasaayo caan ah oo mobile ka xaday adduunkan waxaa uga xanoorta qof in la dhaho tuugaa tahay oo social media lagu dhaho tuugaa tahay kanaa xaday oo haddana qofki inuu soo baxo isla meesha laga dhahay tuugaa tahay oo imaado oo la dhaho kale tahay saaxib waa ku aaminsanaya waxaa saas waaye kan waaye oo aan loo qoslo taasoo kaleetana waa dhibaato weyn waa mid hadda ka taagan youtube-ka oo sidoo hore saaxiibkeena oo noogu sheegay Abukar marka waxaan leeyahay taas ahaan wallaahi ma aqaan wixii qaldan kulay dadkan iika waxay iska jeclaadeen inay magac helaan magaciya waxa iska noqday in dameer sumsid amina tuug lagu dhaho amina wax lagu dhaho marka waxaan leeyahay videogaas wallaahi aad aan ugu xumaaday marka arkin in dhan la dhahay tuuga tahay kana tahay hadda kooma hore wax bilaabto hore u socdo meeqa la jafa iimaanaysi laakiin tan ugu xun waa lagu dhaho tuuga tahay meesha aad joogtaa mobile ka xadii haddana waxaa soo kordhay gabar iyadana oo laba gabdhood oo caan ah gabdhahaas ayagana waxay ka shaqeynayaan shirkad Durdun Media waxay imaadeen meesha Fartuun Balbalka janalkeeda waxaa maqlaadin isla habeen kadib gabdhiya shaqada laga eeriyay shaqada laga buriyay isla fanaan jagajagi wuxuu dhahay mar gabdhaas lacag meesha kama qaadanaynin lacagna uma baahneen iyaga lacag lahaayeen oo dhahay marka waxyaalaha had la taagan oo kaleeto dad waxa jira oo kaleeto maxaa ka tagto kale youtube kaas maxaa ka doontay waxaas oo kale qaabdar waaye
ugu dambeyn go-aana la gaaraa, gabadhii waa la burinaa, shaqadii laga burinaa, shaqadii sidii kuwaani. iyagana waxay ka yihiin dad jecel iyo walaaltinimo, qof walba wuxuu jecel yahay qofka uu jecel yahay inuu u tago la kulmo oo jilalkiis ka soo muuqdo. kulean waxaan leeyahay middaas waa mid aad lacmana loogu xumaado, waana waxa hadda keena youtubeleda xamar in xoogo laga gaabsado. haye badrooni soo dhow waa dhawahay waxaan rabaa 2 point ugu muhiimsan. halban horta uu karo maxaa maanta kugu dhaliyay muuqaalka daraada wax badan oo muhiim ah sheegtay, wixii jirayba ah sheegtay, maxaa haddana kugu dhaliyay dib ina arintan usoo nooleyso haddana aad ka hadasho? maxaa igu dhaliyay xalay waxaan fiirsaday muuqaal saaxiibkeen dayaxay degdeg uu soo geliyay wiil fanaan ah. horta waxaan ka hadlay maalin hore jimcada boontii aad u muhiimsan. boontii kamid waxay ahaayeen qof youtuber uu ku dhagaa wax buu ka sheegaa, kadib maalmo kadib haddana qofkii uu kasoo muuqana ammaan iyo u ka dullaca. hal marka muuqaal aan ku arkay dugaal media yara dhahayo fanaanka nigis ku kaysmiya soo fadhiistay horey waxaa loogu eedeeyey in mobile uu ka xaday xasan toob xaaskiisa. adi waa wax aad u xun qof oo bulshada magac ku leh fanaan ah in la dhaho mobile xaday, haddana maalmo kadib in youtube-kii uu kasoo muuqdo wixii kaftan waa la dhaho. midda koowaad horta dayax keliya micnaha hadda ulama jeedo, tusaale ahaan micnaha meesha ugu muhiimsan maata meesha ugu muhiimsan oo hadda tusaale laga arki karo uu asiga uu noqday ee dadka ay ku fahmi karaan. waxyaabaha dhibaatada kuu keeni karta waxyaabahaas ka mid ah kuwa horta dadka inay ku aaminaan mar labaad ma suurtagalays, waayo qofaa shalay aad tuug ku tilmaamtay, hooyadiisa gaal ku dhahay gaal ku dhahay, meesha ugu xun hooyadiis waa dhimata aad dhahday, keligiisoo meel jooga ciddiisa dhan wuu ka tagay. maantana haddana wixii ka duwan aad dhahdo wixii shalay khalad ay ahaayeen ha laga raali noqdo, kaftanay ahaayo. biri siduu qofka kaleeto kuu aamina haddii aad wax warbixin a soo dhiibtid, qof waa yaraanay qof ku aamino. ciladaas waa midda aan ka hadlaya in youtubeyada muqdisho in middaas iska saxaan. midda labaad aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay midda labaad aan u galin marka ciladaas jirto iyo arrintaas taagan sheegitaankeed maxaa kala gol leedahay? in waxa uu gol leeyahay in micnaha qofkan koodiba horta haba caynin, haddaa caysidne beritoole micnaha youtube-kaaga ha soo fadhiisan. qofka micnaha xaqiiqa ka gudbisay, waxaan run ha aadan ama been ha aadan, dadaa kugu xiran ku aaminsan ku taageero. qofkan waxaa ka sheegtay wixii micnaha run ha aadan ama been, qofku wuu aaminaa, laakiin adiga waxay dhibaato kuu imaanay maalintii qofkaas youtube-kaaga uu kasoo muuqdo aad dhahdo wixii shalay kaf beenay ahaayeen. dhibaato waxaa kugu imaanaysa dad baa kugu xiran in micnaha lagu naco xiisaha aad lahayd inuu hoos u dhaco, dib u dhaca u samaysid, horumarka aad rajeynaysa inaad dib ugu dhacdo. middaasaan ugu gol lahaa in micnaha warkaan aan waxaa kala jeeda micnaha dadkan ayaan maalin walba amin daro kuridina aan horumar sameyn wax fiican oo saxana u gudbin. okay tan labaad ku soo tan labaad waxaan fariin ama micnaha tala aan sii lahaay xasan toob. horta waxaa wanaagsan horta dadka in la caabiyo. waa mahadsanta dad badan horta oo bulshada sumcad ku leh waad soo caabisay maanta social media caanka ah bilowga ilaa dhammaadka. hadda aan ka bilaawno asxaabta ismaaciil iyo super ozil iyo waxay kusoo caanbaxeen youtube-kaaga. markii ay kaa tageen ee youtube ay furteen waan aragnaa wixii ka idin dhex maray. talada aan ku siinayo waxay tahay warka aan kuusoo gabagabeeyo. qofkan maanta abaala u gashay, waa soo caan bixisay, maanta haddii uu horumar uu sameeyo uu kaa tago uu ku soo caayo, ani waxaan kula tali lahaa inaad ka aamusto. waxaad ceeboobay maalintii qof adi aa gacanta kasoo qabatay aad u jawaabtay, maalintaas adiga hoos u dhacdo waxaa kor maray qofkii aad soo caan bixisay. waxaan kula tali lahaa ana kuma dhahayo qof ha caawinin, qof walba oo caawinaad u baahan caawi, laakiin biri hadduu kugu jisaaro keep going u dheh. weligaaga adigaa horumar hiigsanaysid aad samaynaysid, qofkaas weligiis horumar ma gaara. intaas taladaas aan ku sii lahay. anna waxaa ku dari lahaa abuukartaada oo qodobka labaad oo xasantoob waxaan raacin lahaa ta xasantoob sida abuukar uu sheegay maxuma in qof la caawiyo aada u fiican tahay, ama caawinaad ha ahaato ama wada shaqeyn ha ahaato. qofkii shalay markii agtaada uu magac ku sameeyey oo shaqada idinka wada dhexaysay uu habada ku tagay, beritoole haddaa isku dhacdaan ama hadday noqoto in meel kale uu isaga u baahdo uu kaa tago,
oo la kala tago wejigii doonaba ha lagu kala tage qofkaas waxaa dhici karta in uu waxaa dhici karta ma way dhacdaba hal maaha laba maaha saddex maaha min bilow ilaa iyo hadda fanaan jagjaga u dambeeyay ciwaanka xal u dambeeyay wuxuu ahaa fanaanka miis ku heesay oo wax ka sheegay ama waxyaalo noocaas oo kale Xasan Toob iyo arrimo siro badan marka ana ahaan waxaan ku dhihi lahaa in qof aad keentid ama shaqo ay kaala lexeyso ama caawinaad ay ka tahay oo qofkii haddana uu mar walba wax ka soo sheego oo qof walba aad keentid uu wax ka soo sheego qof walba aad keentid wadada shalay qof kale uu maro wax fiican ku ahaan waxaan kugu dari lahaa marka haddii sida ugu gar uu ku dhahay qofkaas uu baxo oo wax ka soo sheego oo aad ka aamusi lahayd ani ahaan waxaa igala sii fiican in aad go'aan ka qaadato qofka aad keenaysid aad caawinaysid iyo qofka aad keenaysid shaqada ka leexanayso aan maxaa la foojignaan badan aad ka yeelatid qofkan ma yahay sida shalay qofkii baxay ee wax ka soo sheego kale qofkan ma yahay qof beri hadee wax idin dhex maraan ama kala tagtiin aanan ku soo dhaleeceyn ama waxaan ka sheegin qofka markuu group leader yahay waxaa la rabaa in go'aan qaadasho uu leeyahay wixii xitaa hadee dan kugu jirto oo inta hore ee dan kugu jirto waxaa ka xun sumcad darada markii meel kale uu tago qofku ku geysanayo taas waxaa kala jeedaa marka intii aad wax badan qofka aad ku danaysan lahayd oo hal maalin uu ku caay lahaa waxaa ka fiican bataatan inaad go'aan ka qaadatid ani waxaan dhihi lahaa marka arrintan arrin aan joogsanayn haddee tahayba oo maalin walba socoto oo qof walba aad keentid oo beri intuu baxo xastooba wax ka sheegay beri intuu baxo xastooba ay qalday xastooba igu khasbay wax fiican ku ahaan waxaa marka kugula talin lahaa aan ku dari lahaa go'aan qaadasho arrinta noocaas faa'iido ma laha toos in loo go'aan qaataa fiican tiimkaaga uu dhisan yahay maanta dad oo u baahan tahay oo aan isleeyahay waxba ka dhiman ma jirto si fiican adiga joogtid waxaa joog nidaamiye tiim badan oo isku xiranaa haysataa oo haddana waqti badan kula joogo aan weli ka tagin wixii kale iska badaa wixii dhacay way dhaceen marka waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta qofka ku imaanayo oo ber intuu baxo wax ka soo sheegay ma jiro maanta YouTube kale oo inta la imaado laga tago wax laga soo sheego waa kaaga oo kaliya ama adiga marka waxaan ku talin lahaa Xastoob asna in go'aan qaadasho uu ka yeesho qofka uu keenayo iyo qofka beri markuu baxo wax ka soo sheegi karo tan kale wax iska sheegitaanka iyo dib isku soo laabashada idan waxaan dhihi lahaa Soomaalida YouTube-ka Muqdisho joogto dhalinyarada YouTube-leeda Muqdisho joogto dadana sugaayo oo aan muuqaalo u sameynaa please aan u gudbino muuqaalo tayo leh iyo wax iyaga farxad gelin karo oo moralkooda bedelayo yaana ka dhigin qofka markuu muuqaalka arko oh shit kan kii shalay uu caanay waaye ma alaykum salaam qofkan shalay kii uu caanay waaye haddana isla asigii waxa mala aamin karo faa'iidada ha fiirin klikta kaliya fiir qofka ku daawanayo muxuu ka aaminsan yahay fiir qofka ku daawanayo falcelin nooc ku soo qoraya commenting labada ugu muhiimsan waa intaas klikta viewska ma faa'iidada waa qofka commenting uu ku soo qorayo iyo fikradda qofkaas uu ka aaminsan yahay fikradda qofkaas ka aaminsan yahay labadaas haddii aad ku guuleysatid inaad hanatid labadaas si sax ah u hanatid dadka way ku jeclaanayaan adna horumar sameynaysa marka arrintan wayna wada saameynaysa tan waxa uu hadleena maaha inaan qofku ataagereeno maaha inaan qof wax kaga sheegayno kaliya waxaan jecel lahay in wanaaga aan is wada tusno marka arrintan wayna wada saameynaysa YouTube-leeda Muqdisho joogto waxaan mar kale ugu celinaynaa in waxyaabahan soo noqnoqday laga go'aan qaato oo dad isku xiran ahaatiin kana fikirtaan waxyaabaha bulshada u geynaysan sida ay u qancin karaan gabagabadaan joognaa marka macnaha tusaale aan ku soo qaadanay dayax ma ahan asiga inaan ku dhammaan anaka kamid ah wayna khusaysaa macnaha tusaale ugu habboona ee dad laga tusi karay asiga uu noqday dayax waa saaxiibkeen dadkan uu la mid yahay ma ahan asiga inaan taageeno dhammaanteen anaka ka midnaan waa ku jirnaa aada u mahadsantihiin gabagabada xalinayna kulay sidaas iyo nabadgelyo muuqaalka insha